kulanti wacan wanaagsan daawadayaal halkan aad naga daawanaysaan waa mid kamid ah xaafadaha magaalada Mandheera waxa maanta barnaamijkan martiigu ah Cabdixakiin Haashim oo kamid ah bulshada magaalada Mandheera ama ganacsatada magaalada Mandheera waxaan fadhinaa goob Cabdixakiin Haashim uu ka sameeyay hal abuur dhanka geed abuurka ah in ka badan 5,000 oo geed taageedkiisuna uu yahay in ka badan 1 milyan oo geed inuu Mandheera ku abuuro ama ka hirgeliyo ayuu noo sheegay inuu qorshiisu yahay geedaha waxay isugu jiraan qaybaha kala duwan geedaha hooska leh iyo waliba kuwa caadiga ah ee geed miroodka ugu horeyn Cabdixakiin soo dhawow maxaa kugu dhaliyay in aad geed abuurka samayso xilliga adoo bulshada kugu taqaano inaad tahay nin ganacsada ah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الحمد لله هوشا waxay ugu dhalisay adduunka hadda waxa ka jirto wax la dhahaa climate change in dadka ay la socdaana muhiim waaye adduunka waxa ka socda climate change kaas meelo badan oo adduunka kamid ah waxa la talaalayaa geedahaas oo ba ahayd shaqadii annaga oo muslimiinta ah inaan qabanaba marka horeba ay ahayd hooska waxyaabaha laga helayo ajirka badan oo laga helayo darteed marka hadda hawshan waxay ugu dhalisay inaan dad shaqo u abuuro oo shaqo abuur ay u noqoto countiga ay hormariso oo green ay ka dhigto meelo badan oo aan ku talagalsanahay in geedahan lagu talaalo ayaa jirto marka taas daraadeed ayaan u bilaaway mashruucan waa tahay marka hadda tusaalahan u soo qaadano line-kan waan tiriyay waa 200 waa 10 times 20 waa tanna waxa weeyaan waa sidoo kale adiga in ka badan ku dhawaad 5,000 oo geed baad halkan ku habeynaysaa caagadaha intaan la eg tiradooda oo geedaha ku abuurayso aruurintooda iyo mataqaanaa keenistooda xageed ka keentaa sideesa ku aruurisa caagadaas nin weyn oo caagada aruurinay bismillaahir rahmaanir rahiim caagadaha aruurintooda lacag baan ku bixiyay qarash baan galiyay rag baan u xil saaray marka raggaas ay soo aruuriyay jubadahan kulay magaalada waxay ku keenayeen wasaq badan ayagana waxay ahayd fikradaha aan ku fikiray oo wasaqda inay magaalada ka yarayaan ay tahay marka saas darteedan jubadii u aruuriyay dad baan lacag ku siiyaa shaqo abuur aan uga dhigay dadkaas ay soo aruuriyaan waa tahay geedahan tabcidooda inaad abuurto oo xil waqtigan ku bixiso maxaa kugu dhigay waxay ugu dhalisay saan horaan kugu sheegay anoo kow climate change ki wuxuu ku xisaabtamay haddana inaan dad badan shaqo abuur u suubiyo oo mashruuc weeye hadda kulay haddii loo helo support dad geedahan dad talaalay u baahan yihiin dad waraabiya loo baahan yahay meelihii lagu talaali lahaa iyo kulli waan qorsheeyay marka saas aan hadda yaa aad ku waraabiyo macnaha waraabiyo mise dad baad u xil saartood ka shaqaaleysay dad baan ka shaqaaleysiyay oo qof baaba u qoran oo bishii lacag ku qaato oo waraabiyo geedahan marka saas weey ma jirtaa wali meel aad ka fulisay qorshahan oo geed abuurkan aad ku samaysaa goob waxbarasho ahaato ama magaalada dhexdeeda ama ha ahaato laamiyada iyo wadooyinka hareerahooda meel hadda aan ka fulay way jirtaa Mandheera DB kamid ah iskuulka iskula soo talaalnay ani iyo dibite dhamastaha iyo dhamastaha nala joogo marka geedihii waan talaalnay oo hadda meel aan ku talaalnay way jirtaa dadka su'aal baa ku soo dhacayso markay arkaan shaqadan culus waxay leeyihiin yaa ku maalgeliyay wax maalgeliyay malaha inta hadda ku horeysay ani baa mashruuc jeebkayga ka waday oo inta soo gaarsiiyay hamigaaga iyo hiigsigaada muxuu yahay marka inaad gaarsiiso waxaan rajaynayaa kulay MB baan leenahay governor aan leenahay MCS kulli inaan u bandhigo ay arkaan waana shaqo oo weyn oo haddana dhalinyar badan shaqo siin doonto ayaga naftinkooda wax u tari doonto marka inay ila qaban doonaan waan rajaynayaa meeqaad doonaysaa inaad gaarsiiso geed abuurka 1 milyan ayaa tageedkayga ah sidii aan mar horeba u qorsheeyo proposalka igu qoran yahay waxyaabo badan ay igu qoran yihiin 1 milyan oo geed inaan talaalo ayaa iga go'an
ilaa goorme meeqay kugu qaadan kartaa isleed marka halkaas ilaa muddo 3 sano 4 sano ayaan qiyaasaya inay qaadan doonto weli ma jirtaa mas'uuliyiinta laga soo doorto ismaamulka Mandera rag badan oo saaxiibadiina jirto weli ma jirtaa qof aad keentay oo tustay barnaamijkan ama aad la wadaagtay ma jirto raga u sheegay way jiraan oo MCA-yada ay kamid yihiin oo laakiin weli aan mashruuci isla sii wadin oo inay MByaasha iyo gaarsiyaan governaha iyo kulli iyo environment-ka dadku u xil saaran I think county environment-ka inay ka warqabaanay ahayd inkastoo weli ay ka warqabin marka nimankii forestiga way ka warqabaan oo waan keenay waan tusay marka saas ay jirto dadka aad tustay maxay ku dhahay ma ku dhiirigeliyeen mise ku niyad jabiyeen kulli waa dhiirigeliyeen oo mashruuc aad oo la yaabeen la noqday oo ma aysa aaminsaneen inuu qof shakhsi ah intan oo geed talaali karo oo haddana xanaaneyn kara balse way arkeen markii dambe inay dhab tahay marka ma isleedahay dad badan oo kugu dayan doono oo kulaylkan iyo isbedelka cimilada ka qayb qaadan doono geeda abuurkan sameyn doonaa jira misleed waa isleeyahay oo hadda ani hataa waxaan rabaa inaan mashruuca aan suubiyo ilaa iyo forest aan suubiyo sida hadda mashruuca igu jirto oo ii qorshaysan meel forest aan u baahanahay wasiirka landka waan u sheegay oo inaan u baahanahay dhul waxaan rabaa inay county government-ka governaha iyo maxaa la dhihi jiray weytaan MB-ga kulli ay hawshaas qabtaan oon create garayna forest oo aan meel cagaar soo saarna meel badan oo ii qorshaysanna way jiraan oon cagaar ka dhigi raba turning some parts of Mandera green la dhah programkaas ayaa ii qorshaysan goobaha sida gaarka ay mataqaana aad diirad u saarayso ama taageedkaaga ah waa goobee ma isku waa goobaha waxbarashada sida iskuulada oo kale iyo madaarista oo kale mise waa wadooyinka hareerahooda mise waa gabi ahaanba xaafadaha waxaan hadda aan si gaar ahaan u fiirinaynaa institutionska oo Mandera ku yaalaan iskuulada iyo meelaha la midka ah kambiyaasha booliista ee biida iyo jeeshka waxay noqoto waxaa hadda kale oo muhiim oo rabaa inaan green ka dhigo qabuurada Mandera waa mashruuc kulley ayna dadka horaan u soo binin balse waxaan rabaa qabuuradii hore oo la isticmaalay inaan fence gareyno si ay ariga iyo ay u gelin xoolaha ay u gelin markaas kadib aan green ka wada dhigno oo meelihii qabri ahaa ay cagaar noqoto marka ay dhinac walbaba saacidayso goobaha ku qorshaysan qabuuraha kamid ah ee qabuuraha hadda kuwa hadda socdaana inaan meelo hoos oo dadka fadhiistaanna u suubino oo meelo badan oo dadka geeda ay ku hoos nastaan intii qofka la duugay hadda waa aragti kulay banaana la iska istaagaa qoraxa la istaagaa hatta qabuuraha dhaxdooda inaan geeda ku talaalno saas ayaan ii qorshaysan waa tahay marka qorshahan iyo howlahan shaqo aad ku guda jirto waad ka warantay ma jirtaa fariin aad u diri lahayd mataqaanaa bulshada ku daawanayso hadday ahaan lahayd madax iyo hadday bulshada caadiga ee shacabka reer Mandera ay ahaan lahaayeen ood ku dhiirigelin lahayd ma jirtaa waxaan u sheegi lahaa bulshada inay geedaha horta talaalaan inay muhiim tahay midda kale aysan lahayn wax oo qofka ay ahayn wax hoos u dhigayo qofka bal ay tahay wax kor u qaaday sida dhalinyarteena badan way ka faanaan inay geed talaalaan iyo waxaas ay suubiyaan balse waxa loo baahan yahay in la dhiirigeliyo ayaga naftinkooda loo sheego geed talaalista inay wax ajir laga helayo tahay dhinaca diini ahaan markaan u kaana dhinaca kale ay tahay environment-ka shay u fiican geedaha environment-ka aad ay u saacideynayaan marka waa inay aad loogu dadaalaa maadaama hadda ay cimilada isbedeleen adduunka inay geed talaalista lagu dadaalo inay muhiim tahay waa tahay fariintaada ugu dambayso fariintayda ugu dambaysa inta daawanayso waxaan leeyahay mashruuca inta county-ga ku tirsan iyo madaxda dawladda kulli waxaan u sheegayaa inay mashruucan nala garab qabtaan oo wixii loo baahan yahay oo kale ay nala sii wadaan nala siiyo dhul aan ku abuuro geeda dhulkan ka weyn kulli meesha waa arkaysaa nafiska waa igu yaryahay aan meel fiican oo geeda aan ku talaashalaysi macnaha waa guriga aad deganayd baad geeda abuurkan aan hadda ku sameeyay bal waxaan u baahanahay land weyn oo ka suubiyo forest iyo wax la mid ah waa tahay Cabdixakiim Haashim aad ayuu mahadsan yahay mashruucan ama fikradan geeda abuurka ah
uu ka sameeyey gurigiisa oo ah halkii hoygaha uu deganaa wuxuu leeyahay haddiiba aan helo goob barnaamijkan ku fuliyo oo ka baxsan gurigaygana waan sii ballaarinayaa buu leeyahay aad ayuu mahadsan yahay geed abuurkan kugu dhiirigelinayna insha allah aad baad u mahadsan tahay dad badan oo kugu dayan doona inay jiri doonaan waan filaya maasha allah waa la rabaa